السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرك وزارة هولها جود دولك يجرينتا أقسمي هراء وزارة هولها جود لبضح اللبانة يقوم التلقى لها وكيلة جارهان عنيقة بروفيسور ياسين حاج محمود حير حلبان إبراهيم علي الجامع حلبان هراء أنا بتوها هاي حسن شهر بتريها مدحوينها عبد القادر عبد الرحمن وجارهان وضيق قبل كيجا ماريه دولستي هودا عمر سيد كوميشنير جبرت أحمد حسن حلبانكا أقسمها وزارة عدالة صاحبك محمد ورسمة عفينك هراء دمان شقالة وينها وزارة هولها جود كوريين دولكي كوريينتا وحنكون السلام يا مر لبعض يا مر صدحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كسوكو رنت وحن أقعد فرح سنة هيمانتا سل حالة مركب كبار حنو مهد علينا يا إله وين واحد كأه هل كان سنة بالقضاء إننا وح ولول يعليسي والبهار مننا هيسم هكذا سوكا كاني aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii ii cogtay ama ii igmaday inaan maanta si aan baqaado shaqada agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha sharafta badan madaxda kala duwan ee runtii waqtiga badan halkan ku bixiyay oo in badan u fadhiyana ka soo qaybgalaan xafladda xilwareejinta labada agaasimo guud mahadcelin ka sokow runtii wixii wasaaraddu qabatay waxa dhameeyay saaxiibkay aan aad ugu mahadcelinayo runtiina aad saaxiib u nahay markii dambe xididnimadii waxba la galgalayo seedigayna ah Jamaal Cabdi Muuse runtii aad baan ugu mahadcelinayaa nimaan isku kalsoonahay saaxiib nahay xidid nahay wixii dad yahay aanu nahay weeye waana runtii nimaan shaqadii ma aha nin anigu runtii odhanaya maadaama uu dhiijigu ka tagay wasaaradii dayaanu ku soo noqnoqonay waxaan aad u jeclahay oo hortiina ka sheegaya inuu noqdo nin nala shaqeeya naga mid ah nala taliya shaqadii noo sii bilaaba wasiirkana runtii aan ka wada hadlo hadda ka hor aan islahayn saacada ka hor waxa weeye wax kugu qaadan lahaa 2 sano ama sanad marka qofkii shaqadii aad kala wareegtay uu meesha joogo waxa lagu yaabaa waqti yar oo kooban inaad runtii ku fahanto oo kugu fahansiiyo marka waxa weeye runtii kalsooni shakhsiya iyo mid shaqada oo isku qabnaa waxaan aad iyo aad isna ugu mahadcelinayaa inuu naga mid ahaado nala joogo nagu dhex jiro inta ka sokow wasaaraddu runtii waa wasaarad aad u shaqo badan gobolada waaweyn iyo gobolada yar shaqooyin badan bay ka wadaa waxaan rajaynayaa aniga iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo technicalka wasaaradda ama shaqaalaha wasaaradda oo dhan runtii annagoo isku niyadsan oo team weeg ah inaanu arinta halka ka sii ambaqaadi doono ilaahayna nagu asturi doono inta ka sokow shaqada wixii laga qabtay wasaaradda waxa sheegay dhiijiga wixii cusub ay yeelanay isaga sheegay maanta aniga hadal badan runtii ima furna waxaan ahay ninka shaqada la wareegayay waxaan kale idin sheegayaa runtii muddo 6 sano ku dhow ama 5 sano iyo dheeraad ah waxaan soo ahaa agaasime admin and finance ah maamul iyo maareyn iyo lacag maamulay xaqiiqatan waxaan u maamulinay u shaqeynay dad civilian ma ahayn dad ciidan ay ahaayeen ciidankuna runtii sida ay sensitive ka u yihiin ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ah ciidii ilaalinaysay mas'uulkii qaranka ugu sareeyay runtii mas'uuliyadda la iska saarayo ilaalintooda iyo ka warhayntooda iyo waxa weeye in ragga la dhaqaaleeyo waa muhiim aniguna waxaan aad u jeclahay wixii kasta loo awoodo iyo wixii loo soo dhici karo iyo wixii loo keeni karaba shaqaalaha oo min washman ilaa iyo waxa weeye agaasimo waxaad inta u dhaxaysa runtii ilaalintooda isku wadkooda waxa weeye ragga ka warhayntiisa si guud si gaar ahaaneedba inaan runtii aad ugu dadaali doono wixii shaqo ee technical wasaaradda taalana si aan daacad ka nahay runtii aniga wasaaradduba inaan diyaar u nahay agaasimihii hore reportkii wasaaraddu qabatay iyo ka soo socda bay noo dhameeyay maanta hadal badan ima furna intaas ma ku soo ururinayaa welcome baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh